بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام بعدي waxaan doonaynaa inaynu halkan fariir ugu gudbino ummadda Soomaaliyeed fariintaas oo qusaysa maktabadda guud ee aqriska ee laga sameynayo magaalada Gaashaamo. maktabaddaas waxaa abaabulay niman dhalinyaro ah oo isku xilqaamay oo maktabad la doonayo in gobolkaas guud ahaan ay u noqoto meel ay dadkiisu wax ku akhristaan kana helaan cilmiga iyo aqoonta kala duwan ee dhinacyada nolosha oo dhan quseeya iyo aqoonta guud iyo gaar ahaaneedba. markaas waxaan runtii aad iyo aad halkan uga boggaadinayaa nimanka dhalinyarada is xilqaamay iyo maamulka degmada oo runtii si wanaagsan loo shaqeeyay. guud ahaanna dadka waxa aan halkan uga soo jeedinayaa inay aad iyo aad uga qayb qaataan oo qof wal oo Soomaaliyeed wixii uu ku taageerayo buugaag leh qalab leh ka qayb qaadasho kasta way u furan tahay. qof kastaabana waa inuu arrinkaa runtii aad iyo aad baa waajiib ayaan rajaynayaa oo halka joogo uga howlgalo, gaar ahaan dadkii deegaanka ka soo jeeday ay aad iyo aad uga qayb qaataan. dadka kale ee ilaa imika ka qayb qaatay iyo dadka kale is xilqaamay ee meelaha joogeen ka ururinaya buugaagtana aad iyo aad baan runtii boggaadinayaa una mahad celinayaa. waxaan si gaar ah doonayaa inaan halkan uga mahad celiyo dhalinyarada uu hogaaminayo Said Cali Saahid oo loo garanog yahay Jalla Saahid Faray oo runtii dadaal aad iyo aad u badan muujiyay, iyo dhalinyarada kale ee la shaqeynaysa runtii ayaguna boggaadinaya mahad celin bay mudan yihiin. maktabaddaas ahamiyad weyn bay u leedahay deegaanka guud ahaan, gaar ahaan dadka jecel akhriska iyo cilmiga oo ay ka haqabtiri doonto in ay helaan adeegii buugaagta ee kuwa waxbarta, kuwa suuqa jooga iyo kuwa daneynaya inay akhriska iyo aqoon guud faa'iidaaba runtii deegaanka ku noolba waxay u tahay arrin aad iyo aad u caawinaysa oo aad iyo aad uga caawinaysa waxyaabaha kala duwan ee ay doonayaan. waana insha Allah waxay noqon doontaa mid soo saarta dad aad iyo aad u maskax furan, aragti iyo fikir leh, nolosha fahamsan, qiimaha aqoonta iyo akhriska iyo waxbarashadu leedahayna aad iyo aad u baraarugsan. deegaankaas oo muddo badanba dowladihii ka dambeeyay dowlad deegaanka iyo guud ahaanba Itoobiya ay aad iyo aad u hagratay isbeddelka cusub ee maanta in guud ahaan qayb soo kordhiya ayaan isagana rajaynayaa oo ay halkaa insha Allah ka soo baxaan dadkii isbeddel u kordhicila guud ahaan ummadda Soomaaliyeed, gaar ahaan ummadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan weynaha hawd iyo dowlad deegaanka Soomaalida. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.